maantii in badan ayaa la hadleen waa gabagabadii waa soo xidhayaa mashruucan waxtarkiisa iyo faa'iidooyinka laga gaarayo maalgelintiisa iyo cidda ka qayb qaadatay iyo hay-adaha maalgeliya wax soo barkeedii la wareegisteedii labada diijayna kala wareegeen waa wada arkaysa la goobjoogootiin waxaan aad iyo aad u hambalyaynayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay mashruucan hadday tahay beri hadday tahay midooba keer oo mashruucan hogaaminteeda leh iyo sayfooyinka laftigeeda la caawinaysay iyo mudowga yurub oo mashruucan maalgeliyey iyo wasaaradaha iyagana ay xusaysay wasaaradda tacliinta iyo wasaaradda arrimaha bulshada iyo qoyska run ahaantii farxad weyn bay tahay inaan xafladda kasoo qayb galo oo dhan intan oo dhalinyari ay fadhido oo 400 iyo dhowr iyo 40 qof oo Soomaaliland oo dhan maanta ka qalin jabiyey laakiin anagu aynu qaybtii hargeysa aynu goobjoogka nahay aynu joogno xirfad kasta oo la bartaa faa'iido badan bay leedahay halka waxaa dhimarka wax weeyaan 100 iyo 60 iyo 186 ayaa ruuxantii hablaha ku boqon ee xirfadanka qalin jabiyeen si gaar ah hablaha ma baleynayaa waxaan aad iyo aad rag iyo dumar baan ku boorinayaa xirfadda barateen inaad ka faa'iidaysataan inaad dalkiina iyo dadkiinaba aad wax ugu tartaan